dadku waxay sugayeen haddii la isku biiro koronto jaban arrintaasi muddooyinka haddeerto intii ay shaqaynayeen beebko wax koronto ah oo jaban oo aanu haynaa ma jirto ilaa Soomaaliland baanu ka liidanaa iyagoo intuu bay ka dhigeen miyaanu ka liidanaa berbera miyaanu ka liidanaa waa in la hadlo oo shacabku ay hadlaan waa inaan hoos loo adamin shacabkaas waa shacab danyara waa shacab aan korontada iska bixin karin kuwa waxaan garanayaa aniga xaafadaha aan degano habeenka bannaanka seexda oo marawaxadda shidan waaye oo barafka biyaha ku darsan waaye dadkaas kitaabka loo maro oo ilaahay loogu dhaarta waxaan rabnaa in korontada loo jabiyo oo ilaahay laga baqo oo aan ka cabanaynaa korontada oo qaali ah degmada Boosaaso korontadu inay qaali nagu tahay markaan xoogay dib ugu noqdo waxa jiray tartan waagii hore korontada ka dhaxayay oo shirkaddan gobaad boolis ay hogaamiso iyo eenaya markii dambena ay midoobeen bulshadana loo sheegay inay koronto jaban helayso run ahaantii dadku waxay sugayeen haddii la isku biiro koronto jaban arrintaasi muddooyinka haddeerto intii ay shaqaynayeen beebko wax koronto ah oo jaban oo aanu haynaa ma jirto guryihii oo dhan waxa looga cararayaa koronto dadkii khaati billaahi waxay ka tegan yihiin koronto qaali ah waxa weeyaan dadkii xagaabaxa kan iyo asbaabta keentay inay boqolkiiba boqol xagaabaxaan waa koronto qaali ah oo bulshadu iska dhicin kari weyday tusaale markaan soo qaadanno magaalooyinka ama Soomaaliya waxaanu noqonnay meesha ugu korontada qaalisan waxa weeyaan maanta gobolladan dariskeena ah laascaanood baa inoogu dhow korontadu waa 23 kilowatt meesha la yiraahdo beledweyne waa 24 waxaan kaloo raacinayaa Hargeysa oo dariskeena iyaduna waa 24 berbera iskoorkii ugu hooseeyay korontada jabisay maanta waa 22 laba xeebood baanu nahay annagu xeebta casban ku naalnaa galif of cadan iyaguna galif of cadan ugu yeer waa ku faraxsanahay walaalahay in iyagu koronto jaban heleen reer berbera annaga iyo reer berbera isku xeeb baanu wada saaranahay annaga maxaa koronto qaali ah annaga dhaxal siiyay arrinta ayaan ka cabanaynaa inay annaga korontadu qaali nagu tahay aanan qaadi karin waxaan raacsanayaa gudoomiyaha cusub ee soo socda ee 9 bisha iman doonow haddaan reer Boosaaso koronto jaban u wadin oo aanadu keenayn ummadda ha u iman ummadda been ha u sheegin dadkaan ha lugoyn ninka imanayo waa ninka soo socda 9 bisha la dooran doono ee maanta tartanka ku jira waxa way dambaalkaas aanu ku diraynaa waxaan rajaynaynaa nin khayr qaba meesha aynu ka soo baxo baahida ugu weyn ay saa ku soo banaan baxeen oo laga rabo ama beebko ha ahaato ama goolis ha ahaato annaga ma kala naqaan ayaas kala yaqaan waxaan ka rabnaa koronto jaban waxaan la mid nahay oo aan la baxnaa dadka darisyadeenna waxa ay bixiyaan waxaan kaga bedelana mal war waxaan kaga bedelana miyaa jira baahida nahaysa waa koronto jaban wax kasta qaali bay nagu yihiin meesha berbera ilaahay baa nagu dhaartay 2 laga dhigay oo Boosaaso 179 ah waxaan qaadan karnaa maaha war miyaan qaadan karnaa 179 ma qaadan karnaa waa diidnay Aqal Muuse Xasan way magacaygu waxaan ay reer Boosaasoda inta odayaasha hore ka hadleen baan ka hadlaynaa korontada magaalada Boosaaso aad baa ugu dhiban yahay dhibaato weyn baa lagu qabaa sida odayaashu sheegeen gobolada dariskeena sida la sheegay 2 iyo 3 laga dhigay innaga marka reer Boosaaso nahay meel xeebeynu joognaa kuleel baa dadku joogaa dan yar weey dadku dhibaatada marka meesha taal waxa weeye in koronto jaban la helo oo korontada la jabiyo oo ay shirkaduhu markii horeeto nidaam kala gaar bay ahayn laakiin waa heshiiyeen waa noo heshiiyeen marka dadka dan yarta oo masaakiinta in loo heshiiyo oo korontada lagu dhibo aad baan ugu xunahay bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo ku hadlaaya dhalinyarta magaalada Boosaaso waxa aad uga cabanaynaa korontada qaaliga nagu noqotay ee magaalada Boosaaso magaaladii oo dadkii ay ka xagaa baxeen oo dadkii magaaladii laga xagaa baxay ayaa korontadii sideeday tahay xilligan oo ku ballamay in la jabiyada dibna ku dhiga oo maalin kasta leeyahay biri waa la jabinaya saadama la jabinaya iyadoo ay tahay magaalada Xamar Muqdisho Hargeysa Berbera garowe kulli ay yihiin mataqaana korontooyinka boontutu laga wada dhigay oo laga wada jabiyay ayaa annagana hadda korontadii in la ku riyo maahay waxna la ka dhimin waxa ka codsanaynaa madaxweynaha dawladda Puntland in arinta wax ka qabto waxa ka codsanaynaa shacabka magaalada Boosaaso waa dhiban yihiin in dibta laga dulqaado kaanoo kamid ah haweenka Boosaaso
ayaan waxaan ka cabanaynaa korontada awalba anagoo la nidina dhaqaale burbur xooggan oo cashuur bixiye aanu nahay ayaan waxaanu ka cabanaynaa korontada waa in korontada waxna la ka dhimaa hoosna loo fiiriyaa dad dan yaraanu nahay iskama bixin karo waa in la fiiriyaa oo ilooba waxna la ka dhimaa meheradaanu haysanaa guryaanu degannahay kiraanu bixinaa waa in la ka dhimaa korontada si degdeg ah la ka dhimaa waa shidan weynay wax allaale waxa isbixin karaa ma jiraan ilooba Somaliland baanu ka liidanaa iyo bointu bay ka dhigeen miyaanu ka liidanaa berbera miyaanu ka liidanaa waa in la hadlo oo shacabku ay hadlaan waa inaan hoos loo adamin shacabku waa inay shucuurtooda ka hadlaan dumar haweenku waa inay hadlaan raggu waa inay hadlaan maxaa loo aamusan yahay way sababta loo aamusan yahay maxay tahay dhaqaale xumo jirta awalba annagoo dhaqaale xumo ka cabanaynay oo dhibaataysnaynba haddana waxa noogu birtay korontadii qaaliya waa in la ka dhimaa ma jirto waxaas waa in shacabka hoos loo fiiriyaa haweenaha waxaanu ka codsanaynaa waa inuu shacabka hoos u fiiriyaa inaan meelo ka sare la laclaacin waa in shacabkiisa hoos u fiiriyaa solar waa la keenay motooradii waa yaaliin berberada inta inoo jirta laba filis bay maraysaa korontadu boosaasana $1 wax ku dhow bay maraysaa marka anigu waxaan qabaa dalka waa loo tashaday dalka waxaa la rabaa dadka in laga raro dalkii dhaqaale xumaa ku dhacday dhaqaale burbur baa ku dhacay dad baa guryaha xirta oo aan waxbaba cunin oo iska maxaan ku idhaahdaa loo qaaraamaa